بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدنيال iyo marweyn السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي waxaa runtii maanta aad iyo aad maalin qiimo badan oo dhammaantiin farxad inoo ah in la soo kordhiyey shilling ama in mushaharkii shaqaalaha dowladda electronic looga dhigay oo qofka fududeyn loo sameeyey runtii qarankeena u ogtihiin muddadaa dheer uu soo jiray waxaa la soo dhisayay mar walba hadday shuruuc tahay hadday farsamooyin kale tahay haddii nolosha shacabka tahay iyo bulshada sidii horumar loo gaarsiin lahaa ummadani waxaa halkan laga sheegay in la sameeyey reforms fara badan ama maaragtay dib u habeyn fara badan oo maaliyadda dib u habeyn badan oo shaqaalaha dib u habeynta shuruucda maaragtay xeerasha dib u habeynta maxkamadaha iyo maaragtay judiciaryga waxaasoo dhan waxaa ujeedada looga socdaa waxay tahay in bulsho caafimaad qabta oo dhisan oo aqoon leh oo in la dhiso baan ujeedada ku tahay hawshan maanta taageera waxay kamid tahay howlahaasi kamid tahay runtii aan aada iyo aad runtii ugu mahadnaqaya ama ugu hambaleynayaa bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo cid kastoo kala shaqeysa runtii in hawshani la bilaabo in nidaamkii waadiyadu u guurtay oo ah online-ka nidaamkaasi oo loo guuray in xukuumaddina u guurto oo maaragtay technology-ga maaragtay la raaco aada iyo aad baan runtii ugu hambaleynayaa labada bangi oo iyaguna maaragtay hawsha qayb ka qaatay runtii ama fudayntooda iyaguna ka qaateen aada iyo aad baan ugu hambaleynayaa shaqaale weynahan waxaa leeyahay waa bishaaro loo sheegay runtii oo u wanaagsan oo nidaamkii ka baxayana hab hasilka ahaa wuxuu lacagtooda kolba dhankay doonta maaragtay ama lacag googo'da ama lacag dhinaata ama lacag dhexda ku lunta intaba ka saaraysa waxaana ujeedo loo sameynaya maaragtay reformadaasi waxa weeye si loo gaadho daahfurnaan iyo isla xisaabta loo gaadho shaqaalaha marka tiradiisa rasmiga iyo tayadiisa la helo waxaa loo gudbayaa in la tayeeyo markaa oo dhaqaalahooda iyo maaragtay mushaar kordhintooda la gaadho sababtoo ah inta qofku waa nin tirada rasmiga ah iyo inta shaqeynaysa dalka u xoogsatay u dhiida la helin wax u qabadkooda ama dhaqaalasiintooda way nagu adkaanaysaa laakiinse markii la gaadho gubtooda waxaa lagu ku qasbanahay in la tayeeyo dhaqaalahooda iyo daryeelkooda aada looga shaqeeyo marka taan waxaa le waa guul qaranka usoo hoyatay aada iyo aad idinku maadnaqaya dhammaantiin cidi kastoo hawsha kasoo qayb qaatay